بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام أما بعد ولاليال إن شاء الله مربو إنان وقتي إذا قاته runtii tacriif badanna ma samaynayno leannii waqtiga oo iska ciriiriya waxaan rabaa inaan kusoo dhaweeyey muxaadaradan ciwaankeedu yahay ku sabridda dhibaatooyinka adag ee haysta muslimiinta waa arrimihii hadda uu walaalkeen caanogel ka hadlayay arrimo la xiriira mujtamaceena khaas ahaan soomaaliyeed iyo carruurteena dhibaatada ka haysata ku noolaashaha waddamadan gaalada marka insha allah mawduucaas buu noqon doonaa muxaadaradeena waxaan kusoo dhaweynaya sheekh mustafa jazakum allahu khayran بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخوتي في العقيدة waxaan mawduuca walaalkay tilmaamay ayaan ka hadli doonaa haddii alla yidhaahdo subxaanaه wa tacaala wixii alla inaga garadsiiyo ilaahi subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa dunida tan in laynoo keenay in layna itixaamo insaankuna noloshiisu nooc kastoo ay tahayba walaqad khalaqna alinsaana fii kabad beer xanuun baan ku dhex abuuray baa la yidhi subxaana wa tacaala waxaa laynoo tilmaamayaa insaanku mar kastaba horta inuu kaadixiyey nolosha tan in loogu talagalay in lagu daalo yaa ayuha alinsaanu innaka kaadixun ilaa rabbika kadxan famulaaqii war waa daalaysaan baa la yidhi subxaana wa tacaala xagga alle u daala casrigan aynu joogno innaguna wuxuu sii noqday cusuurtii fitanka badnaa ama dhibtu ay tiro badan tahay ilaahi subxaana wa tacaala qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamay maadaama aynu mu'miniin nahay in layna itixaami doono imtixaanka qofka mu'minkaa laga qaadayaana jawaabtuu bixiyana inay tahay waxa aakhiro wax lagu siinayo sidaa awgeed baa ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa axasiba annaasu an yutrakuu an yaquuluu aamanna wahum laa yuftanuun walaqad fatanna aladiina min qablihim فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين الله سبحانه وتعالى وحلي ضدكم وحي ملينيان انت يدهدان آمنا إن نسيدا كدين دونا وأن لا يتحامي دون إلهي وحط المامية إن لا يتحامي إن لا فتنين دونا فتنة كلمة الفتنة وحا أسل كذا لتلمامين يتهي marka la dhalaaran iyo dahabkee la kala shiilayo dahabka iyo khashinka la socday kale si loo kala saaro waa la dhalaaliyaa dabeetana dabkaasa kala saara intiisa fiican iyo intiisa xun
waxaa alla inoo tilmaamaya in dadka mu'miniinta imtixaanaad ay ku iman doonaan imtixaankaasi inuu noqon doono ku basharka lagu kala dhalaalinayo oo lagu kala saarayo ilaahay markaa wuxuu leeyahy falaa yaclamanna allahu aladiina sadaquu ilaahay subxaana wa tacaala waa muujin doonaa oo waa si cad baa alla u soo saari doonaa kuwa runta sheegaya ee cahdiga ilaahay la galeen iyo laa ilaaha illa allah muxamadun rasuulullah ka run sheegaya iyo kuwa beenta ah baa ilaahay yidhi subxaana wa tacaala iyo beenta sheegaya waayo ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu tilmaamayaa basharka inay ka mid yihiin qaar haddii uu nimcada helana ilaahay caabuda haddii laysitixaamana yidhaahdo dabaday bannaanka ka baxa waxoo dhan ilaahay qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa wa min annaasi man yaquulu aamanna waxaa la leeyay wa min annaasi man yaquulu aamanna billah faإida uudiya fi اllahi jacala fitnaة الnaasi kacadaab اllah dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kule aamana biاllah laakiin haddii loo itixaamo buu ilaahay leeyay subxaana wa tacaala ilaahay dartii haddii loo itixaamo oo dhibi qabsato wuxuu ka dhigayaa fitnada iyo imtixaankan dadka sida ilaahay cadaabkiisa looga boqoo kale idan waa laabmaya namuudajka kan ama kooxda tan halaca iyo warwarku uu haysto waxaa ilaahay qur-aanku tilmaamaya wa min annaasi man yacbud allaha calaa xarf fain asaabahu khayrun iطma'ana bih wain asaabathu fitna inqalaba calaa wajhihi khasira addunya waalaakhira dadka waxaa ka mida baa ilaahay yidhi kuwa ilaahay dacal ka caabudaya oo haddii wanaagga la helana maca naasa oo khayrkaasi wadaya haddii dhib iyo imtixaanu yimaadiyo mashkiladina dib u laabmaya baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala idan imtixaanaadku way imanayaan mar kastaba dunida imtixaanku waa imanaya waxaana alla itixaamaa dadka kuwa uguba jeclaa ambiyadii iyo rusushii ayaa imtixaanaadka ugu waaweyne ku dhacaa imtixaanka danta laga leeyana waxa weeyaan in la kala saaro alsaadiqiina waalkaadibiin alsaadiqiin fii iimaanihim kuwa iimaankooda ku run sheegaya iyo kuwa ka been sheegaya in la kala saaro idan dadku imtixaan bay ku jiraan fitankaas iyo imtixaankaasi fitan duqaad iyo jabaabira ka yimaada niman kibray oo qooqay oo dadka dhiba oo mashaakil u geysta fitan ka yimaada shahwaati nafs iyo shubahaat iyo wixii la nooca fitanku way tiro badan yihiin insaanku inta badan hadduu dhergo oo uu baahi beelo oo uu xoog isku arko oo uu arko dadka inta kale inay ka liitaan oo ka jilicsan yihiin xaqa wuu ilaabaa ilahay baa qur-aanka wuxuu leeyay kalaa ina alinsaana layadqaa an ra'aahu istaghnaa ina ilaa rabbika rujca ara'ayta aladii yanhaa cabda idaa salla ara'ayta in kana cala alhudaa aw amara biاtaqwa alle wuxuu leeyay subxaana wa tacaala basharku hadduu deeqtoomo kaaftoomo waa qooqaa waa kibraabaa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala kibirkaasi wuxuu gaadhsiiyaa mid tukanaya inuu yidhaha war maxaad salaadda u tukanaysaa inay salaadu dembi noqoto qof lagu qabsado ayaa ilaahay subxaana wa tacaala u tilmaamaya isagoo qofka salaada tukaday aanu wax kala samayn meeshiisii ugu fiicnayd umu dhulka dhigay khalaas cidna waxuma geysanin haddana ilaahay wuxuu leeyay subxaana wa tacaala inay salaadu dembiba u arki doonaa ara'ayta aladii yanhaa cabdan idaa salla waxaa ilaahay subxaana wa tacaala qur-aan ku tilmaamaya mu'miniintu hadday daciifaan kayfa wan yadharuu calaykum laa yarqubuu fiikum ila walaa dimma hadday idinka xoog bataan maxaa dhici doona baa ilaahay leeyay ballan iyo cahdi toona idiin inalin maayaan ilaahay baa wuxuu leeyay laa yarqubuuna fii mu'minin ila walaa dimma mu'minka xaggiisa ballanna ilaalin maayaan qaraabo iyo tollimana ilaalin maayaan yacni xeer la dhigtay oo horoo basharka ka dhaxeeyey iyo heshiisyo yaallay ma ixtiraamayaan baa ilaahay leeyay subxaana wa tacaala waxaa kaloo ilaahay leeyay sokeeyanimo iyo qaraabanimo iyo bini aadamnimo iyo mid kalena kuwa eegi maayaan idan markay tani timaaddo insaanku uu xadka kan gaadho wuxuu gaadhaa xad uu aada u qooqo basharka kalena uu ku dhib mutaa fitnadaas iyo imtixaankaas waa imtixaan bini aadamku uu soo maray ma aha mid taariikhda ku cusub bale markay saxaabadii nebiga mashaakilkan ay qabsaday ilaahay subxaana wa tacaala qur'aan buu ugu tilmaamay mas'aladatan
waxa ilaahay uu ka warramayaa waxay maanta u yaqaaneen alfikra asaadiya. alfikra asaadiya, fikra saadiga waxay ku sheegaan, waxay dhahdaan waa ideologiga ah qofka bini aadamka ah inaanu qofka kale u ciqaabin inuu dembi galayo qura ee mararka qaarkood inuu u ciqaabo bay yidhaahdaan inuu ku raaxaysto. tacdiib ulbashar inay noqoto litafakuh, wax lagu raaxaysto, qof la cadaabayo laakiin ay jiraan dad daawanaya oo mujtamac isugu soo urura in la daawado dad in la cadaabo. taariikhda bini aadamka hore u soo martay maaha mid bilowa. ilaahay subxaanaه wa tacaala qur-aanka wuxuu ku tilmaamayaa qutila asxaabu اlkhduud annaari dati اlwaquud id hum calayha qucuud wahum calى ma yafcaluuna biاlmu'miniina shuhuud wma naqamuu minhm ila an yu'minuu biاllahi اlcaziizi اlxamiid. waxaa la nacdalay ama ilaahay subxaanaه wa tacaala naxariistiisa laga fogeeyey kuwii godadka jeexjeexday baa ilahay yidhi subxaanaه wa tacaala, kuwii godka sameeyey. godkan maxaa lagu qabanayay? qutila asxaabu اlkhduud annaari dati اlwaquud id hum calayha qucuud.